السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآية maanta waxaynu qaadanayna casharkeenii 63aad ee kitaabkii ahaa alcarabiyatu bayna yadayk juskiisii labaad. waxdada aynu ku dhex jirnaa waxdadii 11aad. casharka ciwaankiisu wuxuu yahay limaada aslama Carlos, muxuu islaamay ninka la yiraahdo Carlos. waxaa sheekaysanaya laba wiil oo mid la dhaho amaba laba nin oo mid la dhaho Smith, midna waxaa la dhahaa David. Smith baa bilaabay sheekadii. wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay alyawma maanta Carlos ninka la yidhaahdo oo yadkhulu galaya almasjida masaajidka. maada xadatha, maxaa dhacay? David ayaa hadalkii ka qaatay oo wuxuu yidhi laqad aslama, wuu islaamay Carlos ninka la yidhaahdo Carlos, wa huwa isaguna yusalli, wuu tukadaa fi hada almasjidi, masaajidkan ayuu ku tukadaa bintidaamin, si nidaam leh ayuu waxa weeye masaajidka ugu tukadaa. waaya Smith baa wuxuu yidhi limaada dakhala, muxuu u galay Carlos ninka la yidhaahdo fil islaam, islaamka sababtu u galay islaamka maxay tahay? David ayaa wuxuu yidhi haa huwa waa kan qaadimun, wuxuu ka yimid ama uu ka soo socdaa min almasjidi masaajidka. hayaa nas'alu, inakeen aan weydiine. Smith baa wuxuu yidhi hal aslamta, miyaa islaamtay xaqan dhab ahaantii yaa Carlosow, dhab ahaantii miyaa islaamtay? Carlos baa wuxuu yidhi nacam, haa aslamtu, waan islaamay walxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. David baa wuxuu yidhi maladii, muxuu yahay ka jacalaka kaa yeelay tuslimu inaad islaamtid, sababtaad u islaamtay maxay tahay? Carlos baa wuxuu yidhi ashyaa'un kathiira, shaya fara badan ayaa sabab oo ah inaan islaamo. minhaa waxaa ka mid a wasfu lqur'aani, qur-aanku tilmaamidda uu tilmaamay waxa weeye amaba uu sifeeyey liljaniini, uurjiifka fii badni ummihi, kaasoo ku jira caloosha hooyadii. habka iyo hanaanka fiican ee islaamku u tilmaamay iyo qur-aanku uu u tilmaamay uurjiifka ayaa waxa weeye sababihii igu keentay inaan islaamo ka mid ah. anugu dabiibun dhakhtar baanahay, wa acrifu waxaan garanayaa hada alamra, arrintan ayaan garanayaa. jaa alqur'aanu, qur'aankii ayaa yimid bi hada alwasf, tilmaanta ayuu la yimid. qabla akthara, goortu la yimid waa goorma? qabla akthara, ka hor in ka badan min 1400 sana, 1400 oo sano in ka badan ka hor ayuu la yimid islaamku. waxa weeye arrintaas oo uu tilmaamay uurjiifka ayuu ka sheekeeyey islaamku. qur-aanku uurjiifka ayuu sheegay 1400 oo sano ka hor. wa ahbata, waxaa sugay alcilmu alxadiid, aqoonta cusub ayaa sugtay amaba sayniska cusub ee hadeerto jirana wuu sugay hadi alxaqiiqa, xaqiiqadan. waaya Smith baa wuxuu yidhi wahal hunaaka, ma jirta halkaas asbaabun ukhraa, sababo kale oo jacaladka kaa yeeshay tuslimu inaad islaamtid, sababo kale oo kaa dhigtay inaad islaamtid ma jirtaa? Carlos baa wuxuu yidhi nacam, haa. falislaamu, islaamku yadcuu, wuxuu dadka ugu baaqiyaa, ugu yeedhayaa ilaa sidqi, inay run sheegaan. runta ayuu islaamku dadka ugu baaqayaa. walamaanati, iyo amaanadii in la ilaaliyo wixii laguu amaanaystay. walcadl, iyo cadaaladii ayuu islaamku ku baaqayaa. walmusaawaat, inay dadku siman yihiin ayuu islaamku ku baaqayaa. wasalaami, iyo nabadgelyo. wa cibaadati rabbin waaxidin, iyo in la caabudo hal rabbi oo keliya, hal ilaah oo keliya in la caabudo ayuu islaamku dadka ugu baaqayaa. laqad aslamtu, waan islaamay, bacda qiraa'aatin, akhrin kadib, cadiidatin, fara badan, wa diraasaatin, iyo cilmi baaris, camiiqatin, xeel dheer kadib ayaan islaamay. diraasaad iyo cilmi baaris xeel dheer markii aan sameeyey ee wax badan aan akhriyey ayaan islaamay. sababahan ku islaamayna waxa weeye way fara badan yihiin. waxaa ka mid a qur-aanku tilmaamidda uu tilmaamay uurjiifka. waxaa ka mid a islaamku inuu dadka ugu baaqayo runta, amaanada, cadaaladda, sinaanta, nabadgelyada, iyo in hal rabbi la caabudo. David baa wuxuu yidhi acirnaa, noo dhiib, nacaariye bacda alkutubi, kutubta wax ka mid ah, nacaariye, wa diraasaat, iyo cilmi baadhisyada allatii taasoo qara'taha ad akhriday,
cilmi baarisyada iyo kutubta aad akhriday wax ka mid ah nacaariyayo noo dhiib aan soo akhrina waaye carlos baa wuxuu yidhi bikulli suruurin farxad dhammaanteed waa ku faraxsanahay inaan kutubta idiin dhiibo faladaya waxaa agtayda ah kutubun kathiira kutub fara badan can ilislaami islaamka ka warramaysa. smith baa wuxuu yidhi hal hiya mawjuudatun ma joogtaa ma haysaa al'aan haddeerto halkan ma taallaa kutubtu. carlos baa wuxuu yidhi nacam haa tafadala soo gala maciila jirkayga ila albeyti guriga soo gala oo kusoo dhowaada linatanaawala si aan u cabno bacda alqahwa bunka barkiis ama bunka wax ka mid ah xoogaa buna aan cabnaye soo gala guriga wanataxaddatha aan ka sheekaysano can ilislaam islaamka wa ucdiikumaa waa idin siinaya alkutuba kutubtayna waa idin dhiibaya waa idin siinayaa. david baa wuxuu yidhi hayaa bina inakeen. waxaan ku dhex jirnaa casharkii 64 ee kitaabkii ahaa alcarabiyatu bayna yadayk waxdadu waa tii 11aad. tahya waa diyaar garoobid fakir ka fakar fi lijaabati ka jawaabida can ilasilati taaliya su'aalahan soo socda amaba xiga. lambarka koowaad ma arkaanu alislaam muxuu yahay islaamka tiirarkiisu tiirarka islaamka ayaad sheegaysaa. su-aasha labaad waxay tahay ma rukn muxuu yahay tiirka alladii kaasoo yu-addiihi uu guto almuslimu qofka muslimka ah 5 maraatin 5 jeer fil yawmi maalintii 5 waqti tiirka qofka muslimkii uu guto muxuu yahay. ma rukn muxuu yahay tiirka alladii kaasoo yucdi uu bixiyo fiihi tiirka dhexdiisa almuslimu qofka muslimkii maalan xoolo muxuu yahay tiirka tilmaamaya qofka muslimkii inuu bixiyo waxa weeye xoolo uu bixiyo muxuu yahay tiirkaasi. ma rukn muxuu yahay tiirka alladii kaasoo laa yasixu aan ansaxahaynin adaa'uhu in la guto ilaa fii maka in lagu guto mooyaane mako in lagu sameeyo mooyaane tiirka aan si kale u ansaxayn muxuu yahay. arkaanul islaam islaamka tiirarkiisa al-5 ee 5 ah. waxaan ka hadlaynaa casharka ciwaankiisa wuxuu yahay tiirarka islaamka ee 5 ah. qaala arasuulu sala allahu caleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee bunya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa 5 5 tiir ayaa lagu dhisay. shahaadatu an laa ilaha illa allah waaya shahaadati an laa ilaha illa allah in la qiro ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooyaane. shahaadati waa qirid an laa ilaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu ilaahay mooyaane. wa anna maxameda nabi maxamedna rasuulullahi rasuulkii alle iyo ergeygii ilaahay uu soo dirsaday inuu yahay waa inaad qirto. wa iqaami salaada waa in la ogo. wa itaa'i zakaat iyo sakada in la bixiyo oo la guto. wa xaji albeyti kacbada iyo beytka xurmada leh in loo xajiyo amaba loo qasdiyo. wa soomi ramadaana bisha ramadaan in la soomo oo cuntada laga afaysto. wa haadaa kana tacriifun waa qeexid la qeexo biarkaan alislaam islaamka tiirarkiisa. alruknu alawal tiirka koowaad ashahaadataan waa labada shahaado laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda ma jiro ila allahu ilaahay mooye. maxamedun nebi maxamedna rasuulullahi waa rasuulkii ilaahay uu soo dirsaday iyo ergeygii ilaahay xaggiisa waxa weeye laga soo diray ee ilaahay uu ka soo diray. wa humaa labadoodan waa shahaadateynke miftaaxu dukhuuli waa furaha gelitaanka ila alislaami islaamka la galo. faman qaalahumaa qofkii dhaha labadan shahaadateyn qofka dhaha faqad dakhala wuu galay fil islaam islaamnimadii. alruknu athaani tiirka labaad asalaatu salaada weeye. wahiya salaaduna cumuudu diini diinta tiirkeedii weeye tiirkii diintu ay ku taagnayd salaad weeye. qaala sal lla alay slam nabigu wuxuu yidhi naxariistii nabadgelyo korkiisa haatee ra'sul amri arrinta madaxeedu alislaam islaamnimada weeye. waaya oo islaamnimo wax ka sarreeya ma jiraan. waaya wa cumuuduhu tiirdhexaadkuna islaamka tiirdhexaadkiisuna asalaatu salaada weeye. wa dirwatu sanaamihi islaamka kuruskiisa barta u sarraysa aljihaadu jihaadka weeye. wa dirwatu sanaamihi
islaamka kurus baaleedkiisana waa dhihi karaa. dhirwa waa barta u sarraysa, sanaamna waa kuruska geela waa taqaanin baan filayaa. waayahay barta u sarraysa ayay noqonaysaa dirwatu sanaam. marka dirwatu sanaami lislaam, islaamka kurus baaleedkiisa ama kuruskiisa barta u sarraysa, islaamnimada barta u sarraysa, aljihaadu waa jihaadka iyo qofkii inuu dagaalamo fii sabiilillaahi, jidka ilahay ku dagaalamo. wahiya salaaduna awalu maa shayka u horeeya weeye oo yuxaasabu la xisaabinayo calayhi korkiisa alcabdu addoonka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame, maalinta dambe. qaala sal alla alay slam, nabigu wuxuu yihi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, awalu maa shayka ugu horeeya yuxaasabu la xisaabinayo calayhi korkiisa alcabdu addoonka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame asalaatu salaada weeye. fa in salaxat haddii ay hagaagto, salaxa waa uu hagaagay saa'iru camalihi, camalkiisa intii kasoo hadhayna way hagaagtay. wain fasadat hadday salaadii fasahaado, fasada wuu fasahaaday oo wuu fasahaadaya saa'iru camalihi, camalkiisa wixii kasoo hadhayna. wasalawaatu salaaduhuna 5 weeye. salaatu lfajri salaada subax, waalduhri iyo duhurkii, waalcasr iyo casrkii, waalmaqrib iyo maqribkii, waalcishaa iyo cishii. walisalaati salaaduna waxay leedahay awqaatun xiliyo mucayanatun oo la xadiday, la cayimay, go-an, waaya gaar ah, waqtiyo gaara ayay leedahay. qaala tacaala, ilahi wuxuu yihi, ina salaata salaadii kaanat waxay ahaatay cala almu'miniin mu'miniinta korkooda kitaaban mid waajiba ayay noqotay, mawquutan oo weliba xili loo sameeyey, waqti leh. salaad walba xilli bay leedahay, waqtu dukhuul iyo waqtu lkhuruujna way leedahay, xilli ay soo gasho iyo xilli ay baxdo ayay leedahay. marka salaad walba xilligeeda waa inaad ilaalisid. alruknu athaalith, rukniga iyo tiirka saddexaad, azakaatu sakada weeye. wahiya sakaduna maa shay weeye yukhrijuhu lmuslimu, qofka muslimkii uu bixiyo, min almaali xoolihii uu ka bixiyo xaggoodii. waaya maa yukhrijuhu lmuslimu waxau qofka bixiyo muslimka ahi min almaali xoolihii ka mida, ila alfuqaraa'i fuqaradii uu siiyo. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi, khud qaad min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqo iyo sako, tudahiruhum aad ku dahiraysid oo ku nadiifinaysid, wa tusakiihim aad ku nadiifinaysid bihaa sakadaas iyo sadaqadaas aad dunuubta kaga nadiifinaysid. oo waxa weeye sakadaas dadka laga qaadayo dembigii iyo xumaantii ayay dadka ka masaxdaa oo ka tirtirtaa. alruknu araabic, tiirka afraad, asyaamu waa soonka. wa huwa soonkuna an yatruka alinsaanu, qofku waa inuu ka tago shahwatay lbatni waalfarj, labada shahwo ee tacaloosha, albatni waa caloosha, waalfarj iyo farjiga iyo xubeynta taranka. waayahay qofka waxa weeya muslimkii waa inuu ka tago labada shahwadood. soon waxaa la dhahaa qofku inuu ka tago labada shahwadood ee ah tacaloosha, cuntadii iyo cabitaanka waa inuu iska daayo, farjigiina waa inuu waxa weeye ilaaliyo oo xaaskiisii uusan u tegin. marka soonka macnihiisu waa sidaas, qofku waa inuu labadaba iska daayo, jimaaciina iska daayo, cuntadii iyo cabitaankiina iska daayo. goormaa la iska daynayaa? min alfajri laga bilaabo salaada subax ilaa quruubi shams, ilaa laga gaaro qoraxda dhicitaankeeda. qaala tacaala, ilah wuxuu uhi, yaa ayuha aladiina kuwii xaqa rumeeyeyo, yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii xaqa rumeeyeyow, ee la yidhi wax kastoo la yidhi rumeeyeyow, kutiba waxaa la waajibiyey calaykum korkiina asiyaamu, soon ayaa la waajibiyey, kamaa kutiba sida loo waajibiyey, cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinku horreeyey sidii loogu waajibiyey ayaa idinkana laydinku waajibiyey, lacalakum si aad tattaquuna u cabsataan. walisaa'imin qofka sooman waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay ajrun cadiimun, ajar weyn ayuu leeyahay, abaalmarin weyn ayuu leeyahay. qaala rasul lah sal ly slam, nabigu wuxuu yihi naxariista nabadgelya korkiisa haatee, man saama qofka sooma ramadaana bisha ramadaan, iimaanan isagoo ilaahay rumaysan, waxtisaaban isagoo alla agtiisa ajar xisaabsanaya, gufira lahu waa loo dhaafaa dembigiisa, gufira lahu waa loo dhaafaadhay qofka maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah. alruknu alkhaamis waa tiirka shanaad, alxaju waa xajkii, wayakuunu
wuxuu ahaanayaa fi maka maka ayuu ahaanayaa oo meel aan maka ahayn xajka laguma gudan karo liadaa'i lmanaasik si loo guto acmaashii xajka qaala tacala ilahi wuxuu yidhi walilaahi ilahi wuxuu ku waajibay cala annaasi dadkii xijulbeyti beytka xurmada leh ee kacbada inay usoo xajiyaan oo usoo qasdiyaan oo yimaadaan man istadaaca qofkii awooda ilayhi xajka xaggiisa sabiilan jid ahaan wayajibu waajibayaa xajkii cala almuslimi qofka muslimka ayuu ku waajibayaa maratan waaxida hal mar oo kaliya fi lcumri cumrigiisa iyo da'diisa iyo inta uu qofku nool yahay oo dhan hal mar ayuu ku waajibayaa liman istadaaca weliba cidda uu ku waajibaya waa cidda liman ciddii istidaaca awooda ilayhi xajka xaggiisa sabiilan jid ahaan qofkii jid ahaan u awooda buu ku waajibayaa ee qarashkii ka bixi karaya waaya wahaakada maanta casharkeennii halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa casharka cashar lamida intaan ku kulmayno sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu